shirkadda Dahabshiil Group ayaa deeq lacag ku wareejisay maamulka dawladda hoose ee magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Deeqdan lacagta oo shirkadda Dahabshiil Group ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato dhismayaasha dawladda ay khasaaru ka soo gaareen roobkii ka da'ay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Xasan Caseer Yuusuf oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil ayaa ka warbixiyay deeqdan lacagta ay ku wareejiyeen maayarka degmada Caynaba, isagoo ku dheeraaday doorka shirkadda Dahabshiil ka qaadanayso horumarka dalka gaar ahaan gobolka Saraar. waxa sharaf ah inaan ku wareejiyo maayarka iyo xubno golaha deegaanka deeq ay ka go'aan ay soo dirtay shirkadda Dahabshiil Group oo ah deyn ay ka codsadeen dawladda hoose waa tiduntay deyn ay ka codsadeen lagu lahaa deyntii oo saaka la soo bixiyay ka waxa sharaf noo ah ayadoo markii koobaad ahayn markii u dambeysanayn waxaan uga mahad celinayaa Dahabshiil Group deeqda had iyo jeer la daba joogto shacabkeeda iyo xukuumadeeda waxa weeye in badan waa garanaynaa degmada Caynaba wax badan baa Dahabshiil ka qabtay haday tahay maxadkii haday tahay dugsiga sare tan oo adeeraano gacanta ku hayno marka sharaf bay noo tahay xafiis ahaan inaanu saaka guddoonsino maayarka oo ah deyn ay ku codsadeen shirkadda Dahabshiil Group ay ugu tageen xafiiska guud ee Hargeysa tii oo loo soo ogolaaday oo loo soo diray saaka marka guddoomiye Axmed Cabdi Yuusuf geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Yuusuf iyo sidoo kale xildhibaan Abakar Shida Cali waxayna deeqdan lacagta uga mahadnaqeen shirkadda Dahabshiil Group oo ay sheegeen inay door muhiim ah ka qaadatay horumarka deegaanada gobolka Saraar iyo magaalada Caynaba. waxaanu ka guddoonnay deeq lacageed oo aanu ka codsanay inuu naga bixiyo Dahabshiil Group deynna ku leeyahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Dahabshiil Group waa madaxiisa Maxamed Saciid Ducaale aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida la sheegayna ma aha waqtigii ugu horeeyay ee wax gobolka gaarsiiyo ama degmada soo gaarsiiyo in badan ayuu wax ka soo qabtay dalka dhanna waxbuu ka qabtaa waan uga mahadnaqaynaa deynta uu naga furfuray ee markii dawladda hoose duntay uu dadkii lacagta siiyay dadkii haystay lacagta nooga uu celiyay oo naga bixiyay deynta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Dahabshiil Group. maanta waa bisha 1 bisha 8 waxaan soo gudnoo xafiiska maayarka keenay madaxii qaybta Dahabshiil Caynaba waanu u mahad celinaynaa Ilaahay ha barakeeyo shirkadda Ilaahay maalka iyo maskaxda iyo aqoonta Ilaahay ha barakeeyo. Khaliil Barraw Raan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Caynaba.